Assalaamu calaykum waraxmatullah. Dalka Masar. Halkan waxaan idinku soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dalka Masar. Daawada waxaan ku rajaynayaa muuqaalkan kadib inaad wax badan ka fahanto dalka Masar. Aan hore ugu kusoo dhawaado mowduucina maanta. dalka Masar waxay dhacdaa geeska waqooyi Afrika. Masar waxay xuduud leedahay wadamada Liibiya, Suudaan, Falastiin iyo Israa'iil. Dhinaca waqooyina waxaa ka xiga badda Mediterranean-ka, dhinaca barina waxaa ka xiga badda Cas. Caasimada wadanka waa Qaahiro. dalka Masar waxaa kaloo loogu yeeraa Egypt. Masar waxay leedahay buundada dhulka ah oo la yiraahdo Siinaa, waxayna isku xirtaa Afrika iyo Aasiya. sidaa daraadeed dadka qaar ayaa waxay dhahaan Masar waxay dhacdaa qaarad Afrika iyo Aasiya intaba, maadaama uu buundada Siinaa uu gaarayo ilaa Aasiya, waxayna ka mid tahay wadamada qaaradaha kala gudbo. Masar waxay ka mid tahay wadamada ugu taariikhda dhaadheer caalamka. Laga soo bilaabo qarnigii 16aad ilaa qarnigii 20aad, Masar waxaa xukumayay awoodaha shisheeye. Masar wuxuu ka xoroobay Ingiriiska 14 Febraayo 1922. Masar waa wadanka ugu dadka badan dunida Carabta, waana wadanka labaad ee ugu dadka badan qaarad Afrika. Sidoo kale waa wadanka 33aad ee ugu dadka badan guud ahaan caalamka oo dhan, waxayna uga dhigantaa boqolkiiba 1.31 ee bulshooyinka adduunka. Masar dadkeed ugu badan waxay degaan labada magaalo ee Qaahira iyo Iskandariya. Ku dhawaad 80 milyan oo ruux ayaa waxay degan yihiin labadaas magaalo ee Qaahira iyo Iskandariya. Dadka degan ama dadka ku nool Masar waxaa lagu qiyaasaa ilaa 101,470,784 ruux. Haddii si kale u qaadana waa Masar dadka degan ama ku nool waxay gaarayaan ilaa 1.1 bilyan oo ruux. Bedkeeduna waa 1.1 milyan kilomitir square ama 1.01 milyan kilomitir square. Masar badankii waa saxaro aad u kulul. Saxaraha ugu kulul caalamkan hadeer wuxuu ku yaalaa dalkaasi Masar. Saxarahaas oo kuleylkiisu gaarayo ku dhawaad ilaa 75 centigrade, halka uu shaaha ku falfalana biyaha dabka saaray uu ku falfalama ku karkaro 100 centigrade. Inuu gaaro barta falfalka ama karkarka waxaa ugu dhiman kaliya 25 centigrade. Kaliya boqolkiiba 1.6 ayaa biyo ka ah. Runtii waa tiro aad u yar. Masar waxay caan ku tahay ahraamteeda aad ku waaweyn. Ahraamtaas oo gacan weyn ku leh dhaqaalaha dalka dhankeeda dalxiiska. Ahraamtaas waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin khuburo dhisay waayihii faraacintii hore, loona dhisayna in lagu duugo boqorka markaa xilka hayay. oo boqor waliba wuxuu samaysan jiray haram u gaar ah oo markuu dhinto lagu duugo. Ahraamtaas waxaa ka mid ah Laahuun, Usirkaaf, Hawaara, Unaas, Teti. Ma ahan wax inta lagu soo koobi karo maadaama ay aad u badan yihiin. Tirada guud ee ahraamta ku yaala Masar waa 80 ahraam. Waxaan ugu weyn uguna qadiimsan haramka loo yaqaano Khufu. Khufu waxaa kaloo loo yaqaanaa Great Pyramid of Giza. Dhirirkiisuna waa 139 mitir. Lacagta laga isticmaalo dalkaasina waa Egyptian pound. Waxaan isla soo gaarnay gabagabada mowduucina maanta. Waxaan filayaa inaad xog kooban aad ka haysato dalka Masar. waxaan ku rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Intaynu markale kulmayno waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah.